السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبني السلامية صاحب يال مقعيقو حسن عبد الله waxaan maanta idin soo diyaariyay wada sheekaysi aad iyo aad u xiiso badan oo u dhaxeeya hooyo gabadheedii iyo oday duq ah gabar yar baa waxaa la doonayaa in lagu daro nin oday oo da ah oo ka da'weyn gabadhuna de way ka beediidaysaa anigu ma garanayo sababtu gabdhaha ay u necab yihiin odayaashu maadaama hore loo yiri ninka weyn baa ku dhaqi kara waxaan kula talinayaa de odayaasha inay gabdhuhu aysan diidin waayahay raggeena dhalinyarada ahna de iyaga laftikooda way dhaqan karaan laakiin oday haddii maanta uu sida muuqaalkan aan ku daawan doonta cashirkaanba hantidiisa kala barbu ku siinaa waa lagu yiri deetana waa iska diiday kolley ma garanayo sababta insha Allah qaybta comments-ka ayaan uga doodi doonaa haddii ilaahay oo koraale noqdo marka conversation between mom daughter and all the men waa wada sheekaysi u dhaxeeyo hooyo gabar iyo oday duq ah hooyadii baa hadalka bilaabaysa markuu horeyso iskuulka bay ka doonaysaa gabadheedii iskuulka ay ka soo fiirinaysaa dabcan marka ugu horeyso marka iskuulka markay tagtay waxay leedahay where is the principal away maamulihii of this school iskuulkan macallinkii baa wuxuu leeyahay sorry halkan waa macallinku waa ka gooni waay marka macallinkii baa wuxuu leeyahay qof baa marka u jawaabaya teacher macallinkii dabcan qoraalka halkan iga khaldamay sorry inaan kala saara ay ahayd laakiin inaad fahmi doonto baan rajaynaya teacher he went waxa uu aaday waa maamulihii to another school kale ayuu aaday to supervise it si uu u soo kormeero yani si uu kormeer ugu soo sameeyo maada waxay leedahay marka uu ka soo tagaysaa gurigii bay tagaysaa gabadhii iskuulka laga soo daynayaa gabadhii markay imaato ay barnaamijkii odaga in lagu darrabo ay gabadhii u soo bandhigaysaa waxay leedahay my daughter gabadhaydii you came late waad soo daahday so sida daradeed what happened to you maxaa kugu dhacay gabadhii waxay leedahay nothing mom waxba hooyo hooyada waxay leedahay I wanted waxaan doonayay to tell you inaan ku sheego something waxbaan doonayay inaan ku sheego my daughter gabadhaydii arrinkii odagii ayaa loo soo bandhigi rabaa gabadhii waxay leedahay what is it mom maxay yihiin hooyo waxay leedahay maamadii waxay leedahay as you know sida aad og tahay you are the spinster erayga spinster waxaa la yidhahdaa qofka aan gabadha aan la guursan gaartayna da'dii guurka ayaa la yidhahdaa waa unmarried woman and reached the age of marriage waa haweeney aan la guursan gaartayna da'dii guurka marka spinster baa tahabay ku leedahay gabadheedii sidaad og tahay and your father aabahana gave you waxa uu ku siiyey to a man nin and you are engaged to him isaga ayaadna u doonan tahay engage waa u doonaasho yani qofkaas ayuu u doonan yahay oo lagu mehrinayaa waa yahay maxay dhihi doontaa talow waxay leedahay I do not want ma doonayo to marry inaan guursado that old man ninkaas da'da ah when I hear markii aan maqlo his speech hadalkiisa I am near waxaan ku dhowahay to find inaan suuxo yaa allah ninkii odaga ahayba waa gabadhii waa u cuntami la'yahay hooyada baa waxay leedahay and do not refuse hadidin that man ninkaas he built waxa uu dhisay a big house guri weyn ayuu wuxuu u dhisay for you adiga he built a big house for you guri weyn buu ku dhisay he usually praises you alaaba ama hadiya jeerna praises you waa uu ku ammaanaa and also sidoo kaleetana he loves you waa uu ku jecel yahay he will give you waxa uu ku siin doonaa the half of his property qayb ka mid ah hantidiisa the half qayb ka mid ah of his property hantidiisa property waa hanti daughter gabadhi waxay leedahay mother hooyo bay ku leedahay don't force me ha igu qasbin to marry inaan guursado that man ninkaas please fadlan hooyada markaan way xanaaqaysaa waxay leedahay intaan ka badan kuma tugtugi karo farduco iyo far habaar qabso wixii ay Soomaalidu dhihi jirtay waxay leedahay it's order waa amar bay ku leedahay to marry him inaad guursato isaga take curse or bless
qaado habaar ama duco. Bless waa duco ama barako. So take curse or bless, habaar ama duco mid qaado. You have 10 days, 10 maalin ayaad haysataa, to reach si aad u gaarto a decision, go'aan. Gabdhii 10 maalin ayaad haysataa baa lagu yiri si aad go'aan uga gaadho in aad aqbasho arrinka aan ku soo bandhigay anigoo ah hooyada. Waa yahay odagii oo aan meel ka dheerayn joogay baa wuxuu yiri, old man wuxuu leeyahay, what are you talking about? maxaad ka hadlaysaan? yani arrinka lama socoyo. gabadhii baa soo boodaysa intaysan maamad u jawaab. waxay leedahay, never put in your mind, marnaba maskaxdaada ha gelinin. never put ha gelin in your mind, maskaxdaada, that in I shall be, aan noqon doono your wife, xaaskaada. gabadhii buu hami gelinaya marka. wuxuu leeyahay old man wuxuu leeyahay, I anticipated, eryadan yani waxaan u calaamaynayo xoogaa waxaan isleeyahay amay ku yar cusub yihiin dadka qaarkiis. I anticipated, waxaan rajaynaya buu leeyahay, waxaan filayay, to dispatch you, inaan kuu diro. dispatch waa qof inaad meel u dirto. to America, Mareykanka inaan kuu diro baan rajaynayay. yani hami buu gelinayaa. I anticipated, waxaan filayay, to dispatch you, inaan kuu diro to America, waddanka Mareykanka, after the marriage, guurka kadib. yani markaad i aqbasho oo aan isguursano in aan Mareykanka ku diro ayaan rajaynayay. dear, qaali buu ku leeyahay gabadhii, an opportunity, fursadu, knocks, waxa ay soo garaacdaa at every man's door, nin kasta albaabkiisa waxay soo garaacdaa fursadu at once, hal mar ayay soo garaacdaa, not twice, laba mar maya. yani fursadu laba mar kuma soo marto, hal mar ayay ku soo martaa. walaashay wuxuu leeyahay, so make use of, ka faa'iidayso. make use of, erigan dhowr jeer waa soo aragnay. make use of, saddexdaas marka la isku qabto waxaa waaye ka faa'iidayso. make use of your time, waqtigaaga ka faa'iidayso. wuxuu leeyahay marka, make use of, ka faa'iidayso, this golden opportunity, fursadan dahabiga ah ka faa'iidayso walaalay. marka waxay leedahay, I don't want, ma doonayo, to marry, inaan guursado, an old man, nin duq ah. so look for, raadso, your level, faca raadsi bay ku leedahay, levelkaaga raadso. bye bye, waana la maca salaameynaya. the end, hal mar ayaan dulmaraya iyadoo English ah. okay, and conversation between mom, daughter and old man. Where is the principal of this school? Teacher, he went to another school to supervise it. My daughter, you came late, so what happened to you? Nothing, mom. I wanted to tell you something, my daughter. What is it, mom? As you know, you're the spinster, and your father gave you to a man, and you are engaged to him. I do not want to marry that old man. When I hear his speech, I am near to find you. Do not refuse that man. He built a big house for you. He usually praises you, and also he loves you. He will give you the half of his property. Mother, don't force me to marry that man, please. It's order to marry him. Take cards or plans. You have 10 days to reach a decision. What are you talking about? Never put in your mind that I shall be your wife. I anticipated to dispatch you to America after the marriage. Dear, an opportunity knocks at every man's door at once, not twice. So make use of this golden opportunity. I don't want to marry an old man, so look for your level. Bye bye. guud ahaan halka ay ku soo afmeeraya wada sheekaysigan aad ku xisaabadana mid lamid inta ku kulmi doona waxaan idinkaga tagay sidaas iyo amaana Allah.